taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sarayo Guuta Saad Cismaan Cabdullaahi ayaa shir gudoomiyay shirka taliyaasha hogaanada qaybaha iyo fadhiyada madaxa banaan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed kaasoo lagu qabtay taliska daraawiishta booliiska. Taliyaha ayaa intuu shirka socday waxa uu warbixino kaga dhageystay saraakiisha sare wuxuuna carabka ku adkeeyay in la soo xoojiyo sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan midka caasimadda Soomaaliya Muqdisho. waxaana saraakiishan uu furay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed dardargelinta xasilida amniga caasimadda iyo sidoo kale sidii ummadda Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen nabadgelyo buuxda isla markaana looga hortago waxyaabaha keeni kara amniga ama lidiga ku ah amniga dalka. ugu dambeyntii waxa uu kula dardaarmay inay waajib tahay ilaalinta madax banaanida iyo wadajirka dalkeena. shirkan oo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed shir gudoominaya ayaa ahaa mid saacado badan qaatay isla markaana saraakiishii ka qayb gashay halkaasi uu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa xasilinta amnigan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ah midda koowaad iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen nabadgelyo buuxda isla markaana looga qaban lahaa waxyaabaha ay u arki karaan amni darrada ama shakhsiyaadka keeni kara xilliyada qaar in amni darro ay ka dhacdo caasimadda Soomaaliya Muqdisho. General Saad Cismaan Cabdullaahi taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaan marnaba waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in xasilooni darro ama amni darro ay ka dhacdo gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho. waxaana saraakiisha dhammaan guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan uu faray inay muhiim tahay in amniga dalka mar kastaba laga hormariyo wax kasta.